Dagaalka u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sii xoogaystay waxaana hadda isla gaaray in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho dhammaan lagu celiyo dadka ku safrayay deegaanada maamulkaasi. Wararka saaki naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku xaniban yihiin dadkii ugu badnaa oo kasoo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, taasi oo la sheegay in dowladda ay hakisay kadibna la sheegay in markaasi khilaafka cirka isku sii shareeray. Kulamo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo markaasi u dhexeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu kala tegay, waxaana la sheegay in markaasi marnabo ay suurtagal ahayn in madaxweyne lafta gareen wada hadal lala galo maadaama dowladda ay sheegtay in ay ka awood badan tahay islamarkaana tallaabo cad ay ka qaadayso. Maalintii shalay ahayd ayay markaasi dowladda waxa ay diyaarada ka celisay garoonka diyaaradaha magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Hase yeeshee saaki waxaa la sheegayaa in garoonka diyaaradaha ay ku xanib yihiin siyaasiyiin iyo sidoo kale muwaadiniin kasoo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Si kastaba ha ahaatee, khilaafka u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan waxaa isla gaaray in shacabka lagu hakiyo garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo, garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, iyadoona sidoo kale la sheegay in dowladda ay qaadi doonto tallaabo ka dhan ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Sida ay wararka sheegayaan, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dowladda waxay qorsheynaysaa in ay xirto isla markaana maxkamadda ama xeer ilaalinta ay soo saari doonto warqad lagu xirayo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay, sidoo kalena wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi waxaa lagu soo daadiyay ciidamo Itoobiyaan ah iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Wadooyinka laga soo gala magaalada Baydhabo ayaa guud ahaanba waxaa la dhoobay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiyaanka ah iyo sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed, kuwaasi oo la sheegay inay ka hortagayaan duulaanka uu Xasan Sheekh ku qaadayo dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad uga carooday waawaanta lala galay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale amarka uu diiday oo ah inuu yimaado magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, xiisada u dhexeysa Koonfur Galbeed iyo maamulka dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh ayaa cirkaas ku sii shareertay, iyadoona markaasi madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu doonayo in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono guddiga doorashada maamulkaasi oo markaasi dhowaan maamulku qabsan doono doorasho u madax bannaan. Dowladda ayaa qorsheynaysa in magaalada Baydhabo ama magaalada markaasi Barawe ay ku qabato doorasho, halkaasi in ay geyso mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed, iyadoona sidoo kale magaaladaasi ay joogaan maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Hase yeeshee ciidamadaasi ayaa la sheegay inaysan awood badan lahayn, sidoo kale ciidamadaasi ayaa xirtay goobo badan oo ka mid ah magaalada Barawe ee xarunta gobolka ama xarunta maamul goboleedka ee Koonfur Galbeed. Dadka shacabka ee saakay ku dhibaataysan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo markaasi u jeeday magaalada Baydhabo iyo deegaanada maamulkaasi ayaa la sheegay in markaasi dhibaatooyin fara badan ay la kulmeen maadaama waqtigii ay raaci laayeen diyaaradaha laga hakiyay, iyadoo garoonka diyaaradaha laga dareemayo mashquul aad u tiro badan oo markaasi ku saabsan xanibaada la saaray dadka maamulka Koonfur Galbeed. Afyeen u hadlay madaxtooyada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu awoodiisa ku koobay inuu shacabka dhibaateeyo laakiin uusan waxba ka qaadaynin deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka guud ahaanba. Si kastaba waxa uu sheegay in markaasi ay la dagaalami doonaan haddii Xasan Sheekh uu isku dayo inuu markaasi tallaabo usoo qaado dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa muuqata in khilaafka u dhexeeya ama dagaalka u xoogeystay, haatana shacabka magaalada Muqdisho ku dhibaataysan ee lagu xanibay garoonka diyaaradaha ay muujinayso in dowladda ay qaadi doonto tallaabo ka dhan ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed.